السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta leh meel kasta joogtiin ku soo dhawaada wararka Samareeb TV qodobada wararka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah qarax ismidaamin ah oo ka dhacay shabeellada hoose midowga Yurub oo ka jaray lacagihii uu siin jiray ciidamada Kenya ee ka dagaalama dalka Soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug ayaa mucaaradka oo heshiis cusub la galay ciidamada xoogga dalka oo horjoogyaal ku dilay gobolka Shabeellada Dhexe madaxweynihiis aasay Zambia oo geeriyooday isagoo jira 97 sano jir ah aadan bare ducaale oo ka hadlay afduubkii gabadha Soomaalida maalmihii la soo dhaafay loogu geystay dalka Kenya gaar ahaan magaalada Islii intaasi waxay ahaayeen qodobada wararka ugu dooran haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug oo heshiis la galay musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ee ka soo jeeda Galmudug xildhibaanada labaad ee golaha ee hadda ku jira baarlamaanka kana soo jeeda Galmudug iyo siyaasiyiinta kale ee deegaanka heshiiskan ayaa dhigaya in qoorqoor uu dhaxdhaxaad ka noqdo doorashada xildhibaanada ee ka dhacayso Galmudug oo la filayo in ay loolamaan siyaasiyiinta miisaan culus oo kala socota dawladda dhexe iyo mucaaradka xogta ayaa tilmaamaysa in madaxweyne qoorqoor loo sheegay in kursigiisa uu ka weynaan doono haddii uu doorashada xildhibaanada u doodo musharaxa gaar ah sidoo kalena uu la safto dhinaca ka mid ah kooxaha siyaasiyiinta Soomaaliyeed ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegeen in madaxweynaha qoorqoor uu ballan qaaday in uusan cidna taageeri doonin isla markaana uu ka shaqeyn doono in si cadaalad ah doorasho ku dhacdo isagoo wada shaqeyn ka dalbaday xubnaha mucaaradka ee ka soo jeeda deegaanka midowga Yurub ayaa waxa uu siin jiray ciidamada Kenya ee la dagaalamaya al-shabaab ee gudaha dalka Soomaaliya ayaa la jaray 66% ama 4.9 bilyan oo shilinka Kenya sanad maaliyadeedka cusub oo bilaaban doona bisha Luulyo maadaama ay soo dhawaatay taariikhda la qorsheynayay in ay ka baxaan Soomaaliya taas oo ay hogaaminayso qaramada midoobay sida ay qorayso qaar ka mid ah warbaahinada dalka Kenya howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa qorsheynaya in bisha December ciidamada Soomaaliya lagu wareejin doono amniga dalka ciidamada Kenya ayaa bishii October ee sanadda 2011 gudaha u galay dalka Soomaaliya si ay halkaasi uga dagaalamaan kooxaha al-shabaab ay sheegeen in ay qatar ku hayeen amniga gudaha dalka Kenya fariisimaha militariga Kenya ee Soomaaliya ayaa ku yaala deegaanada hoostaga maamul goboleedka Jubbaland wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxa ismidaaminta ah oo loo adeegsaday gaari ayaa ka dhacay afafka hore ee xiro ay ciidanka militariga Soomaaliyeed ay ku leeyihiin deegaanka Biicade ee gobolka Shabeellada Dhexe askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ku sugnaa xiradaasi ayaa la sheegay in uu dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray qaraxa wararka qaar ayaa sheegaya in Colonel Sali Cabdulle oo ka tirsan saraakiisha xoogga dalka uu ku soo gaaray dhaawac fudud dhinaca kale wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in qarax ismidaaminta ah oo loo adeegsaday gaari ayaa ka dhacay afafka hore ee xirada ciidanka militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Biicade ee gobolka Shabeellada Dhexe madaxweynihii hore ee Zambia Kenneth Kaunda ayaa geeriyooday isagoo jira 97 sano Kaunda sida ay xaqiijiyeen xubno ka tirsan qoyskiisa madaxweyne Kenneth ayaa ahaa halyeeyay xoreeyay Zambia ayaa ku dhintay isbitaal militariga ee ku yaala Lusaka halkaasi oo lagu daaweynayay Kaunda wuxuu xukumay Zambia laga soo bilaabo 1964 markii wadanka koonfurta Afrika xorinimadooda ka qaateen Ingiriiska ilaa iyo 1991 intaa kadib wuxuu noqday mid ka mid ah dadka ugu firfircoon ee Afrika ee ololeeya la dagaalanka HIV cudurka AIDS-ka mas'uuliyiinta ugu sareysa ee Zambia ayaa si weyn uga hadlay geerida madaxweynihii hore iyagoona ku tilmaamay aabihii Zambia xildhibaanka laga soo doorto Garissa County aadan bare ducaale oo ka mid ah siyaasiyiinta bilaabay in la kulmaan laamaha amniga wuxuuna sheegay in ay warka ku hayaan in 3 gabdhood la waayay 2 reer Islii ah iyo mid deganeed xaafada lagu magacaabo Kayole muuqaal argagax leh ayaa lagu baahiyay baraha bulshada oo ay ka soo muuqatay mid ka mid ah gabdhahaasi waxayna sheegtay in kooxda haystaan ay doonayaan ilaa $50,000 oo madax furasho
toogasho ah. Gabadha ka soo muuqatay fiidiyowga waxaa wejigeeda ku yaala dhaawacyo xun, da'deedana waxaa lagu sheegay 23 sano jir ah, sida uu qoray wargeyska Standard ee dalka Kenya. Wargeyskan oo soo xigtay dumaashigeeda oo lagu magacaabay Cumar Ibrahim wuxuu qoray dadkii afduubay waxayna fariin noo soo qoreen Arbacadii, waxayna sheegeen in madax furasho ay doonayaan. Waxaan ka walwalaynaa in ay dhibaato u geystaan, ayuu hadalkiisa ku sii daray wargeyska ka soo baxa dalka Kenya ee Standard. Ciidamada Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa diyaarinayaan soo jeedin ah in 10 tababarayaal ah ay ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran loo diyaariyo dalka Soomaaliya si ay ugu caawiyaan ciidamada maxalliga ah ee la dagaalanka Al-Shabaab. Tallaabadaasi waxay qayb ahaan muujinaysaa in dib loo laabanayo go'aankii lama filaanka ahaa ee madaxweyne Donald Trump uu kaga saarayo Soomaaliya ku dhawaad 700 oo ka tirsan ciidamada Mareykanka bishii Janaayo. Amarkii madaxweynaha hore Trump ahaa in ciidanka dhulka laga soo saaro Soomaaliya waxayna qayb ka ahayd rabitaankiisa ah in la joojiyo howlgallada militariga ee muddada dheer socday ee lagu soo horjeeday kacdoonka Islaamiyiinta ee ka socda wadamada Afrika iyo Bariga Dhexe. daawadayaal intaas waxay ahaayeen war wixii dalka iyo daafaca caalamka idinka keenay. warkan war la mid ah intaan kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. intaas waxaan kusoo gabagabaynaynaa warka Samareeb TV. warkan war la mid ah intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.